annagoo soo xajinay oo laabasho ah ilaahay xajka inaga aqbale oo gruubkii xamladii aan wadno Jidda airport anoo ka dhoofayo xagga ay London ku socdo ayaan oday Pakistani ah diyaaradda ku wada kulanay ficlan waa qiso cajiib ah qisadaas mar hore waa sheegay waa ugu cilaya walaalaha hadda si tooskaana in maqlayo in lagu duceysto dhulkan barakaysan oo la yimaado inay muhiim jidda tahay oday aan ku qiyaasay ahaan da'diisa aan ku qiyaasay 64 ilaa 65 ayuu ahaa aad buu weynaa madaarkii ama airportka anagoo ka kacayno oo ku sii socona xagga iyo Ingiriiska ayaa odayga sheekaysanay wuxuu ugu yiri waliba sax hadalkii ugu bilaabay markaan iswareysanay haye maxaaji baa taa soo xajisay markaasaan ku yiri haa waa soo xajiyay adiguna soo xajisay haa markaasaan ku yiri haye waran mal xajkaani dad iswareystaan noqon qiso wuxuu ila wadaagay cajiiba oo min rawaa'ic al-qisas qisooyinka cajiibka wallah waxayna taa dalil u tahay qissa hadaa dhameystid waan hubaa hadaa qissan dhameystid inay raad iyo saameyn kugu sameynayso maxaa yeelay odaygaas da'da ah ee madaxu cadaaday ee muslimka ee muwaxidka ee ka soo jeedo qaaradda Asia oo Pakistani ahaa ayaynu wada kulanay asagaana qiso ila wadaagay odayga markaan sheekaysanay waxaan ku yiraahdaa xajki ugu horeeya mise waa xaj markaas intuu yaabay waa xajki ugu horeeyay waliba xaj caadi ma aha oo iga duwan yahay yiri taariikhdayda baal dahab ka galay rabbul kacba odayga wuxuu igu yiri adduunyada inta aan joogay laba mar baa igu darnayd buu yiri ama laba mar baan ooyay eragaas isticmaalay laba mar baan ooyay markaasaan ku haye dhagahan taaga marka hore waa xogaa si oo yar baasana markuu igu yiri waartii igu darnayd laba mar baan ooyay ayaa si fuujinaan ku dheehan tahay odayga u soo eegay odayga markaan eegay oo ku haye maxaa dhacay wuxuu yiri waa mar gabar aan dhalay oo jaamacadii dhamaysay oo maaragtay dareen kartid aabe ilmihiisa ku soo dadaalay heerkii waxbarashada soo gabagabeeyay bilaawasho u tahay inuu shaqaysto gabadhiba wuxuu yiri ayadoo muddo bil ka yara shaqadii aaday oo aadayso ka soo noqonayso subaxyada kamid ah ee gabadheedii wali aan wuxuu doodo guriga iska jooga ay itiraab mac salaama shaqadii baan si aadaya waan xasuustaa ilaa yoomina hada wa ismi muuqata waa sidii uu sheegay muuqaalkeeda gabadheed aaba waa baxaya warsiga qaatay baabuurkeeda qaatay waa dhaqaajisay shaqadii baa aduuyo wuxuu yiri odaygaas intay gabadheedii highwayga iyo wadada khatu saricintii saarnayd ayaa waxa dhacay wax qadar ah gaarigii baa qallimay waliba koombu noqday gabadheedii saaka iga tagtay ee gabdhahayga kamid ahayd ee aadka u jeclaa ee heerkeeda waxbarasho dhamaysatay waxay ahayd saacadii ugu dambeysay ee dunida ay ka laalaabato waxay ahayd murug ay bilaabatay wuxuu yiri in my life hasu igu dhaay wallahi waa labada jeer oo aad u oohin sida sabiga oohin sida ilmihi waan ooyay yiri qalbigeena ilaa hadda oo ku taalo weyn bay ugu tahay markaan soo xasuusto gabadha waad badalaawiyo marka labaad oo ooyay waatan marka meesha u socdo maxallo shaahidkii ee aan u socday ee aan qisada aan ku soo qaatay markii labaad ee aan si sabiga ooyay waxay aad buu sanadkan hadda ku jirno 2019 waa sanadkaas xajki waan xajka u dambeeyay wuxuu yiri bishii ramadaan baan qadimay baasaboorkii wax allaale wixii qof xaaji ah looga baahnaa inuu xajiyo waraaqihii oo dhan ayaan agensigii shirkadii iyo xarayn lahayd xajka aan la wadaagay wuxuu yiri waqtigii markuu soo dhawaaday xajka oo fiisayaashii in la helo la rajaynayay ayaa waxa dhacday in liis uu soo baxay dadka fiisa helay iyo dadka qaaran helay waa noola wada cazumay walaalihii fiisa helay iyo kuwaan helin baqaaco ama hool weyn baa inoo la yeelay waana wada nimid halkii anakoo la sheegi rabo dadka fiisa u soo baxay kuwii kale aniga wuxuu yiri kurba ugu bilaabatay waana xaj igu horeeyay waa iska bilaadanka dareen wuxuu iska leeyahay ku abuuran ama noqoto kuwa laga tago ama noqoto waa walwalooyo si kastaba ha ahaatee waxaa nasiib darro noqotay oo iga naxisay inaan ka mid noqday walaalihii la yiri walaale fiisiya xajka laguma helin oo maadan helin waan qaracmay dadka caadiga iska ahayd laakiin anigu iga duunay sababtu maxay tahay waa xajkii igu horeeyay
wuxuu yiri ilin baa iga soo qabatay waa adkaystay nin weyn baan ahay inaan isgiijiyaan damcay waa adkaystay albaabka ayaan ka buuxiyay si gees u istaagay